بسم الله الرحمن الرحيم. cashirkan waa cashirkii labaad ee koorsadeena basic ms excel. qaybtii hore qaybtan ka horeysay waxaan kusoo baranay qaabka loo soo furto ms excel. mid kamid ayaan hadda u maraynaa. marka waan soo furanaynaa, waxaan taabanaynaa start buttonka, kadib waxaan taabanayaa excelka calaamadda halka iga soo baxayso. qaabkan shaashadan igu soo dhaweynayaa. kadib hadda home ay ii saaran tahay. iyadoo home ii saaran aan halkan sii taabanaa, ay ku qoran tahay blank workbook. haddii aan rabo new aan tegayaa, kadib halkan aan taabanayaa. waa isla meeshii. haddii aad new imaato iyo haddaad adoo home joogo aad taabata, labada way ku furmayaan. marka waan taabanaya, waan furanaya. waa soo furanay ms excel. waxaan imaanay goobtii wax lagu qorayay. goobtan wax lagu qorayo xogaa laga yaaba inaad la yaabto marka hore. shaashada markaad aragto maxay ahayn leemanka sidaa isu wada goynaya, inaad istira laga yaabaa. laakiin xasuuso waqtiga aad dhiganaysa iskuul hoose dhexe ama iskuul sare aad dhiganaysa, xasuuso buugaagtaada midka aad xisaabta ku qorto iyo midka aad ku qorto ingiriiska ama juqraafiga isku mid maynan ahayn. kuwa juqraafiga iyo ingiriiska iyo maadooyinka qoraalada dhaadheer aad ku qoraysa waxay lahaayeen leeman dhaadheer wax isgooya mayna jirin. laakiin kuwa xisaabta aad ku qorto had iyo jeer waad doorani jirtay qaabkan ay u ekaayeen leeman sida isu goynaya, boxyadan aysan u lahaayeen. taas marka waxay ku tusinaysaa barnaamijkan excel in boqolkiiba 98 loogu talagalay in loo isticmaalo xisaabaad. halkaas aad ka qaadanaysaa cabirka. marka barnaamijkan inta badan waxa loo isticmaalo xisaabaad weeyaan. taas ayaa keenaysa in qaabkan uu ekaado sida buuggaada xisaabta aad ku qoran jirtay. qaybta wax lagu qorayo waa qaybta hadda cas, oo haddii aan hadda tusaale aan ku tusiyo oo hadda hadka aan saaray, intaasa wax lagu qoranayaa. qaybta wax lagu qoranaya marka waxay leedahay leeman sidaa u jiifa, kuwa hadda aan tuujinaya, oo loo yaqaano rows, rows. madaxa waxay ku leeyihiin lambaro, rowsa loo yaqaanaa. shaashadda hadda ii furan inta rowga ku jirto haddii aan rabo inaan arko, halkan aan qalinka iska keensanayaa meelun. laakiin xaggaas ma aha, meeshaas kuma shaqaynayso dabcan. meelahan wax ka hooseeya, meeshan iyo wax ka hooseeya. halkan aan qalinka keenayaa, waxaan taabanayaa keyboardkayga intaan tago, control aan taabanayaa oon haynayaa, kadibna waxaan taabanayaa shift waan haynayaa iyadana. waxaan tegayaa qaybta filaaraha, filaarta hoos eegaysaan taabanayaa. markaan taabto qaabkaas u boodaya qalinka. waxay tusinaa meesha ugu hooseysay. eeg meesha ugu hooseyso inta row aan sheegnay, rowga ugu hooseeyo nageenaya oo ah tirada ee rowga ahee ku jirta hadda shaashadan inoo furan. waxaa waaye 1,480,576 weeyaan. intaasoo rows waaye oo sidaa u jiifaa. haddii aan rabo inaan ka noqdo isla meeshii aan tegayaa, waxaan taabanayaa control shiftan haddana taabana. anoo sidaa u hayaa waxaan tegayaa filaartii hoose aan marka hore taabtay, filaarta saraan taabanaya, bam meeshii ugu soo celinayaa. ka waran marka 1,480,000 god ama sadar oo jiif ah kugu filno. kaa badan yihiin aan umaleynaya haddii aad wax ku qoranayso. kuwaas rowsa loo yaqaanaa. marka kuwana ayagana ee sadaradan joogga ee kuwa hadda aan tuujinay aad arkayso waxaa loo yaqaanaa columns. halka rowska sadarada jiifka ay halkaa ku lahaayeen tiro, kuwan waxay halkaa ku leeyihiin xarfihiiba oo alifbeetada ee xagga sare ku leeyihiin a b c d. waad aragtaa a b c d markay dhammaato z ay ku dhammaanaysaa. eeg z markay ku dhammaato wuxuu bilaabaa a b a c bilaaba. qaabkaasuu ku soconaya. iyagana inta ay dhan aaday u fog yihiin. haddii aad rabto inaad tagto ood ogaato, halkana qalbiga iska keensanaya. iyadoo sidaan waxaan taabanayaa control shift, filaarta dhinaca midig fiirinayso aan tegayaa. wuxuu igeynayaa godka u dambeeya ama sadarka u dambeeya joogga ah waa xfd waay. waxay ku tusinaysaa alifbeetadii 26 ahayd yaa waxay soo laabatay 26 jeer. marka intay dhan yihiin waad garan kartaa, waad dareemi kartaa intay dhan yihiin aad u badan yihiin. aad bay u badan yihiin xfd waay. waxaana dhahnay wuxuu ka bilaabayaa a b c d, kadib wuxuu dhahayaa a, kadib wuxuu bilaabayaa a b, kadib wuxuu bilaabayaa a c. siduu u waday wuxuu hadda joogaa xfd. iyagana aaday u badan yihiin. waa kugu filan yihiin aan umaleynaya iyagana haddii aad rabto sidaas inaad wax u qorato. haddaan rabo inaan ka soo laabto, waxaan tegayaa control iyo shift,
filaarta bidixda ee kasoo muxuu ahaa lidkeeda umaan taabanaya markaa halkiiaan kusoo laabanaya marka sidaa u fahad waxaa waaye columns oo joog ah iyo rows oo jiif ah. marka column kasta iyo row kasta meesha ay isaga dhacaan waxaa la dhahaa cell. hadda halkan oo kale fiiri cell baa la dhahaa. waxaa waaye columnkan ee jooga ah iyo rowgan sadarkan jiifka ah meesha isaga dhacaan waaye waa boxkas yar cell baa la dhahaa. meeshaasa wax lagu qoraa marka waa goobta wax lagu qoro waa cellkan marka reference name uu leeyahay. mustaqbalka markay aad koorsada gudaha usii gashaad fahmi doontaa ahmiyaddeeda. reference uu leeyahay magac buu wuxuu leeyahay sumadda uu leeyahay cell kasta aan ku dhufto sumada ay leedahay. eeg cellka markaan sidaa ugu dhufto mar kasta ood cell sidaa ugu dhufato ama aad highlight garaysa highlightaa la dhahaaye xarafka columnka saaran had baa koraya. eeg lambarka rowga saaranna sidoo kale waxaa koraya hadhaa koraya. fiiri kana had baa saaran kana hadhaa saaran. haddaan ka qaado eeg hadhka meeshuu korayo fiiri kuwaas marka waxaa waaye sumadda waaye sumadda cellkan waaye godkan sumadiisa waaye. sumadiisa marka waxay noqonaysaa markii la magacaabayo waxaa la isticmaalayaa xarfahan iyo lambaradana la isticmaalayaa. waxaa lagu hormarayaa xarafka J kanoo kale hadda wuxuu noqonayaa J11. waxaa waaye cellka ama godka J11 waaye. xagga sare wuxuu ka yahay J oo row column ahaan xaggana wuxuu ka yahay 11 row ahaan. cell reference la dhahaa waa sumadda godka aad wax ku qorayso sumadiisa weeyaan. godkaas cell la yiraahdo sumadiisa weeyaan. alright dhinacan kale waxaad arkaysaa halkan in ay noogu qoran tahay sheet 1. excel markaad isticmaalayso waxaad ka cabirtaa book oo kale oo intaasoo bog ah oo aad bogga u horreeya furanayso wax ku qoranayso kadib bogga kale aad furanayso wax ku qoranayso kadib sidaas u soconayso. sidaas maanka ku hay. marka hadda bogga koowaada inoo furan. boggan excel bog looma yaqaanee waxaa loo yaqaanaa worksheets. marka iyaga worksheetsaa loo yaqaanaa ama sheets waxaa dhahdaba. hadda waxaa inoo furan worksheetka koowaada inoo furan bogga koowaada inoo furan sheet 1 bogga koowaad ayaa inoo furan. guud ahaan inta sheet ama inta bog uu ka kooban yahay waa badan yihiin. haddii marka sheetkan uu kaa buuxsamo ama aad rabto inaad ka gudubto oo bog kale inaad soo furato aad rabto balaaskana taabanaysaa. balaas kaasaan taabanayaa. muxuu ii soo qorayaa sheet 2. hadda waxaan joogaa sheet 2 qaybtan sheet 2 waa bogga labaad waaye. bogga kale waa kaa bogga koowaad. bogga labaadna waa kana. mid kale haddaan rabo halkana uga darsanayaa. mid kale haddaan rabo halkaasa uga darsanayaa. waxaa la sheegayaa inay halkii file aad furato halkii file excel aad furato inuu kuu qaadayo haddaad sidan u socoto inuu kuu qaadayo 255 bog ama worksheet ama sheet oo ka bilaabanaya sheet 1 sheet 2 sheet 3 sheet 4 ilaa adi intaa doonta ku darsato 255 la sheegaa. anu ma soo xaqiijinin laakiin qaabkaasi sheegaan buugaagta ilaan maba la gaari karo maana waxaas dhan gaari karo maba gaari kariya garan baara. marka intaasoo bog yaad kan intaad furato wax ku qoran kartaa kanaad aadi kartaa kanaad aadi kartaa kanaad aadi kartaa. bogaggan hadda marka inoo furan iyo kuwo kale aan furan doono marka la isu geeyo waxaa la dhahaa workbook aa la dhahaa. macnaha waxaa waaye book intaasoo bog ah. tanaana ku cadaynaysaa magaca halkaa waxaa ku qoran book 1. aniga hadda waxaan furtoon excel ka furta bogga koowaad. boggaa ii furan hadda bog excel ii furan. boggaas wuxuu ii leeyahay ilaa hadda aan furtay bogga koowaad bogga labaad bogga saddexaad iyo bogga afaraad. kuwa kalena haddaan raba halkana ooga soo darsanaya new sheet halkana ooga soo darsanaya. marka sidaas u fahan. qaybtan sheetka ka hooseysa qaybtan ilaan sheetka halkan ay soo korayaan qaybtaas ka hooseysa status bar baa la dhahaa. status bar hadba xaaladaha ay ku sugan yihiin xogta ku qoran sheetkaas ama boggaas ayuu halkan kaaga sheegayaa. tusaale ahaan wuxuu kuu sheegayaa sida isku darka oo kale wadarta haddii aad xisaab halkan haday kugu qoran tahay xisaabta isku darkeedu halkan kaa tusinayaa. celceliskeedu halkan kaa tusinayaa. adoon u dirsanno halka kaa tusinaya status bar baa la dhahaa. halkan haddaan imaano meeshan waxaa la dhahaa formula
baa baa la dhahaa. marka waa meesha sida rasmiga ah marka Excel loo isticmaalayo meesha wax lagu qorto waay. oo qaabkee lagu qoranaya halkan markaan dhag ka siiyo oo aan rabo inaan wax ku qorto sideedaas halkan dhihi fiiriya halkan ku qori karaa saana ugu qori karaa laakiin xaggana wax baa ku soo qormaya fiiri maxaa way micnaheeda halkan inaad toos ugu qorto na waad heli kartaa laakiin sida rasmiga waxa waay markaad qalin sida ugu dhufato meeshan halkaas qalin la geystaa iyadoo halkaas sida ugu taagana halkan qalin la geystaa halkaas wax lagu qortaa marka sida saxda waa saas siba markaad qaacidooyin waxaas aad gelinayso waan arki doonaa mustaqbalka halkaas sare wax lagu qortaa meeshaas waxa la dhahaa formula ba halkan qaabkaas ee laba dhinac looga wadaa taan halkan garaaco tusaale saas igu soconaya oo ii soo bixinaya ka inta ii buuxsanto dhinacana uu soconaya qaabkana uu soconaa kana dhinacana uu soconaya sagana qaabkaas ii soo bixinaya kuwan waan arki doonaa halkanna waad ka weyneysanaysaa hadda 100% waaye waan ka weyneysan karaa shaashadan weyneysan hadaan rabo shaashada inaan weyneysto halkan blast man garaacaya 180 hadda ka dhigo waa soo celin karaa halkan aan ka soo celinayaa 100% aan ku soo celinayaa oo normalka ah halkan aan u imaano marka qaybtan sare waxay leedahay qaybtaas halka kor fiiriya oo la dhaho quick access toolbar markaan qalin sida u saar fiiriyo wuxuu soo qorayaa quick access toolbar waxa waaye waxyaabaha sida degdegta loo isticmaalo yaa halkan la soo saartaa waxyaabaha aad doonayso inta badan aad isticmaasho yaad halkan soo saaranaysaa tusaale dokumentiyaal badan aad furtaa openka halkan soo saarana qaabkaas uu keenaya tusaale dokumentiyaal badan aad qortaa inaad save gareysaa rabtaa halkan ka save gareysanaya okay wax kale ma sameynay waan arki doonaa insha Allah waxa la dhahaa quick access toolbar waxa waaye qaybaha ama batanada inta badan aad isticmaali doonto yaa halka la soo saartaa waxaan sida u weyn halkan saaran aad moodo mastarad waxa la dhahaa ribbon la dhahaa ribbonkan marka wuxuu ku hayaa batana ha aad isticmaal doonto oo qoraaladaada wax kaga bedeli doonto ayuu ku hayaa kow waxa waaye file laakiin hadda file kuma bilaabayno home ku bilaabayna markasta oo aad barnaamijyada Microsoft Excel furto waxaa horay kaaga furmaya inta badan home-ka waa meesha laga bilaabo wax home-ka gudihiisa batankan weyn gudihiisa waxa ku jira halkan ay ka tusinaysaa ribbonka hadba kan markaas qalinka saaran yahay waqti uu ka hoos dhaqaaqaya halka iyo halkan ka tusinaya haddaan kan ku dhufto kan ku xigo aan ku dhufto wuxuu tusinayaa batankan gudihiisa inta batan ee kaleetan isticmaal kare ku hoos jiro tusinaya haddaan kan ku dhufto kuwii ku hoos jireen uu tusinaya waa soo baxaya kan haddaan ku dhufto sidoo kale kuwan uu tusinaya waa ku hoos jiraan uu tusinaya kan sidoo kale markaan inta ka yimaado mid kasta oo aan ku dhufto waxaad arkaysaa qaybaha hoos imaanayo inay yihiin leeman inay leeyihiin sida uu kala qaybiyo hadda groupkan oo kala fiiri meeshan tables ay ku qoran tahay len halka ku yaalo halkan waxa ku qoran tables lenkan iyo lenkan waxa u dhaxeeyana waxa ku qoran illustrations lenkaas iyo lenkan waxa ku yaalana waxa ku qoran add-ins sidoo kale charts tours sparklines filters links comments waxana waa gruubo kan text symbols waa group marka waxa waaye group weeyaan group isku shaqeeyaan hadii aan home taabto tusaale sidoo kale ayadana fiiriya groupkan u horeeya waxa la dhahaa clipboard waxay la shaqeeyaan waxa la xiriira copy iyo paste iyo waxaas weeyaan waa kana cut copy paste waxyaabaha inta meel laga copyo oo laga sameeynayo nuqul laga sameeynayo oo kale qaybtan xigta groupkan lenkan dhaxdiis group kale waaye fonta loo yaqaan qoraalada iyo sidii muxuu muuqaalkooda loo bedelo waxyaabaha la xiriira halkan ku jiro sidoo kale groupka xigo alignment iyagana fiiri group walba markaad isticmaalayso fanaxdan yaraad qodaysaa text yara ku soo baxay fanaxdan hadaad ku dhufato boxkaas ku soo baxa halkaas aad ka adeegsanaysaa groupkan hadaan rabo tusaale kana ku dhufanaya ama midaan xabad u aadi karaa laakiin dialog boxka noocan oo kale ta ku soo baxayo marka mid kasta oo aad isticmaalayso laga soo bilaabo home ilaa help kan mid gadaal aan uga soo dira waayaan aniga isticmaalaya waa inta file home insert page layout formulas data review view and help inta soo badanya marka mid kasta marka taabato alooshiis wixii ku jira ku soo baxayo aad sameyn doonto marka waan arki doonaa qaybaha hore aan ku arki doonaa qaybaha dambe koorsada aan ku arki doonaa haddii alla idmo sidaas marka u fahan intaas ha inoo joogto السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.